Shirkada Dahabshiil ayaa sida aan ka warqabno dhawaantan xariga ka jartay dhismo cusub oo ay leedahay Dahabshiil Group waxaana xariga ka jaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareena. hayeeshee madashii daafurka ayaa ganacsato ka hadashay oo markay ka sheekeynayeen dhismaha cusub soo hadal qaaday waxqabadka Dahabshiil iyo kaalinta ay ku leedahay hanaanka ganacsiga iyo maalgelinta ayaa qaarkood ka muujiyay dhaliilo laba qaybood oo kala ah cadada lacagta maalgashiga oo xadidan oo qofkii u baahan deen tirada lacagta uu qaadan karo oo ka badnayn 100,000 oo dollarka Mareykanka iyo dheef kororka oo aad u badan oo gaaraya 10% iyo in ka badan sida uu ku yiri xafladda Yuusuf Maxamed Khayr Guurow oo ah xildhibaan hore haddana ah ganacsade dhanka hoteelada isla markaasna ah maamulaha Bayern Munich. maalgelintu waa sida la sheegay hoogaa in la kordhiyo anigu intaan ogahay lacag 100,000 ka badan macnaha ma jirin hoogaa ma waxaan u malaynayaa in dhaqaalayarada waddanka miya oo ama kala daadsanaanta aaminaanta oo waddanka aan weli uruursanayn miya ma aqaan meeshaas maxoogaa waxbaan ka tabanaynaa oo lacagta weli dadka lagu maalgeliyo aad bay u yartahay in kor loo qaado waa midda kale adduunyadu anigu meelaha dadka hoogaa soo warwareegaan ku jiraa percentage-ka hoogaa waxaad moodaa inuu sare jiro aniga lacag waqti ilaa 2 sano oo kana wax qaatay 8% baa lagu dhigay hoogaa waxaad moodaa qiimahaasna inuu sareeyo oo bangiyada maalgelinta sameeya adduunyada 5% wax yidhaahdaa u badan oo la isticmaalaa haddii aan ahayn lacag waqtigeeda ugu fara badan oo xilli ah haddaan ahayn waqtigiiba kooban percentage-ka weli sareeyo inkastoo ay jiraan tiro badan oo bulshada Baydhabo ku nool oo u shaqeeya Dahabshiil ayaa haddana dhanka shaqaalaysiinta la sheegaa inay ku eg tahay shaqooyinka hoose oo aan dhaafsiisanayn waxyada oo iyagaba tiradooda yar tahay iyo kaalinta hantida Dahabshiil Group kaliya tahay mid ay leeyihiin ganacsato deegaanka u dhalatay oo saami ku leh Dahabshiil oo ay dhaqaalahooda kaliya ku celceliyaan gudaha Koonfur Galbeed oo aysan jirin lacag ka timaada xarunta dhexe ee Dahabshiil Group taasi oo xadiday xeerka maalgelinta Dahabshiil ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya marka loo eego gobolada kale ee ku dhow xarunta Dahabshiil sida mar kale uu sheegayo ganacsada Yuusuf Maxamed Khayr Guurow in lacagta yar wax lagu maalgeliyo reer Koonfur Galbeed oo inta ay meesha dhigteen ay yihiin ee aan Dahabshiil lacagteeda aan muraabacdaas aan weli soo gaarin sida u badan Koonfur Galbeed oo ay meelaha ku ceestaan oo lacagtooda inta ay soo gaarin lacagtii 100,000 gaarayso loo wariyo xamar iyo Hargeysa xagga ka aan lagu ugu barin Koonfur Galbeed oo intooda uu isku celceliyo taasna waxaan hoosanaynaa lacagta ay leedahay raasmaalka Dahabshiil inay wax laga soo gaaraan naqshada uu soo bandhigay gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dooyow ee ah dhismaha wadooyin casri ah oo la saarayo buundooyin taasoo sheegay inuu hordhigay mas'uuliyiintii ka socotay shirkada Dahabshiil markay la qoyay proposal kaas oo may leedahay buundooyin oo Baydhabo ku diyaariyay say tumuhay in buundooyin oo lama buund isbaanraas kuweel berdigi oo yaala in Baydhabo ka tilmaamay proposal kaas aan la qoyay oo musawirada saab ku fidin la mijidna gado ku baaw ini oo way ninkasta Dahabshiil marka haddii ay gudoomiyaha Dahabshiil aad taqooy isoo aqaarti sidii jirta la talad oo madaxweynaha hortiisa akbar iyo arrintaasi direeri doona ini ma tuhay oo ay tago madaxweynaha oo taas laakiin Dahabshiil ba dirnay laag bees in yara taqnada doonto musmaliyu gada dhawaado geed may ku hadlaan in kaas dhista oo gudoomiyaha weeray nidaam u tar shirkadu aan leeyahay aan ku diiray laakiin akbar iyo arrimada ma ku gaar Dahabshiil dhaliisha uu soo jeediyay ganacsada Yuusuf iyo naqshada dhismooyinka wadooyinka uu hordhigay gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere oo ku kacaysa wax ka yar midda ay geliyeen dhismaha cusub ee Dahabshiil Group Baydhabo ayaa muujinaysa hadba jawaabta ay ka bixiyaan ayaa sawiri doonta in Dahabshiil Group inay ka shaqeystaan ama u shaqeeyaan Koonfur Galbeed
Shukri Ismail Ahmed, Baydhabo Janay.